بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد marka horey baan u ballan qaaday inaan nuquusha soo gudbiyo anigoo ka daba tagaya hadalkaas weliba mar hore waan ishaarayay nuquushaas meelihii ay ku taalo iyo qofka inuu raadsado laakiin khasamka asiga wuxuu ka dhigay xatmi in loo keeno meesha yacni uu arrintaas loo cuskaday arrintuna waxay ahayd codadkana waad ku fahmi doontaane shaahidiina calaa anfusihim bilkufri ayaa nin wuxuu u fahmay in ay gaaladu lahaayeen annagu gaalaa nala dhahaa calaa dalaalin mubiinin baan ku jirnaa buu ku doodayay isigoo daliishanaya aayaddaas suuratu tawba iyo mugta aayadda suuratu acraaf washahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin inkastoo taas uu ka qancay marka dambe uu yidhi aakhara wax gaaloobaya maba jiraane waaba isdhiibayaanba dadka laakiin isdhiibidda wax u tari mayso waana run arrintaas wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuum waqad khaaba man xamala dulma waxaa soo haray marka aayadda suuratu tawba oo keliya shaahidiina calaa anfusihim bilkufri gaaladu ma waxay lahaayeen annagu gaalaan nahay sideenaba mase waxay ahaayeen siduu allah noo sheegay oo ahayd innahum ittakhaduu shayaadiina awliyaaa min duuni illaah wayaxsabuuna annahum muhtaduun halkan soo fiiri marka alimaamu shawkaani aayaddan siduu ku fasirayo qaala shawkaaniyu raximah llahu tacaala fatxulqadiirka cinda qowlihi tacaala shaahidiina calaa anfusihim bilkufri qaala wuxuu yihi shaahidiina xaalo waay ay xaal waay maa kaana lahum dalika xaala kownihim shaahidiina calaa anfusihim bilkufri iyo arrintaa waxay ku timid buu yihi biidhaari maa huwa kufrun muujinta ay muujinayaan waxyaabo kufri ah oo awthaan ay samaysanayaan ay caabudayaan ay aaliha ka yeelanayaan fa ina haada shahaadat minhum calaa anfusihim bilkufri samaysiga arrinta ay samaysanayaan falalkaas ficil baa laga hadlayaa waa shahaado ku qirid waay naftooda ay kufri ugu qireen wain abow dalika bialsinatihim maxalu shaahidka halkaa waay macnaa afku kama ay dhahayn gaalaan nahay afka maxay ka lahaayeen annagu calaa hudan mustaqiim baan ku taagannahay maxamed iyo asxaabtiisuna ina haa-ulaa'i la daalluun iyagaa lunsan bay lahayn annagaa toosan afka saasay ka leeyihiin laakiin ficilkoodiibaa kufriga qiraya waay intaan u sheegaynin intaas ay ahayd wuxuu yihi yani shaahidiina calaa anfusihim bilkufri waa alafcaal wain abow dalika bialsinatihim carabku maxay ka qirayeen carabku way diidanayeen inay gaalo yihiin wiilkaaguna gaalaysiinaya naga cilibay lahaayeenba waana keenayaa inay saas leeyihiin ma ujeedaa afka kama ay dhahayn marka inta aan u sheegayni intaasay ahayd marka maadaama nuquul u codsaday baan sidaa nuquusha u keennay haddii alla idmo waana sii wadayaa nuquusha marka gaalnimada way dhex fadhiyeen fal ahaan bay u samaynayeen shaahidiina calaa anfusihim bilkufri wa afcaashooda qiraysa gaalnimada iyo xaalkoodii alxaalun afsaxu min almaqaal waayaba amaa isla toosnaan wayaxsabuuna annahum muhtaduun waaba lagu yaqaanayba waa manhajkoodaba marka islaamnimadu waa toosnaan allah uu keenay isla toosnaan maaha nuquusha marka aad ku fahmayso waxaa ka mid a arrintaas waxaa ka mid a aayaddan alla subxaanahu watacaala uu leeyahay kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun sidau ku fasirayo alimaamu dabari fiiri marka yaquulu alla wuxuu leeyahay kullu daa'ifatin wa firqatin min haa-ulaa'i aladiina faaraquu diinahum alxaq firqo kasta iyo daa'ifo kasta oo diinta xaqa ah khilaaftay oo bidcooyin keentay allatii axdathuu ay soo dariyeen bimaa ladayhim farixuuna yaquulu alla wuxuu leeyahay uu yihi bimaa hum bihi mutamasikuuna min almadhabi farixuuna waa ku faraxsan yihiin oo masruuruuna waa ku faraxsan yihiin yaxsabuuna waxay isu qabaan ana sawaaba macahum duuna gayrihim marka ma waxay lahaayeen gaalaan nahay marka halkaas waa kaaga caddahay ibnu kathiir kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun
يفرحون بما هم فيه من الضلال بعض أي كسجنيين بي كفر حسنيين لأنهم يحسبون أنهم مهتدون وهي سقبان وهو وصل توصني وصل في عين إيجا أصل توصن مسلم كي إيو النبي صلى الله عليه وسلم وحي أملين يعني إني بعض يسينيين دبر إساس اللي ابن كثيرنا وددا سمري سجنا سيدو قال ابن كثير محوليه وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وهو شيء أي بدعيان النفط ذي هودو ذي كهلين به واتبعوا فيه آباءهم أي كراعين وحيث الرميسنايين أن فعل آبائهم فعل كأبهد إنه يهي مد أمر إلهي شرعي الله باكو إنكري مرك وآيدي أهد وإذا فعلوا فاحشة شركي كفر مركي سميان وحي لايين وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الله نمعيري قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إسلا توسنان بمركب إيشة تالي إسلا توسنان أيام ميشة تالي سدين وحيري رحمه الله تعالى تابعي ظنوا أن أعمالهم حسنات بيموديين أعماشو إني في عنتاي الله نيقود وانيان لكن وحا أصو ظاهري إني سيئات تهي غير كيسنا وحيري عملوا أعمال بيسمين ظنوا أنها تنفعهم إني وحتى يسيموديين فلم تنفع مع شركهم ما دام شركة كجيران وحو مترين marka gaaladu ma lahayn anagu gaalaana la dhahaa ma lahayn ee maxay laayeen anagu toosana anagu calaa hudan mustaqiim baan ku taagana nabi ibraahim baan raacsanay maxamed allunsan bay laayeen wabadal lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuun aayadahaas ku tusaya mujaahid muxuu yiri aayada markuu fasirayay wuxuu yiri amilu a'malan ay umalaynayeen inay xasanaat tahay fa idaa hiya sayi'aat bay noqotay tafsiir dabari قال أبو جهل يوم بدر أبو جهل محير مالنتي بدر وعن يزيد وحال قوري غير كي سبا قال ينور أبو جهل يوم بدر اللهم إلهه الله بريا سمارت اللهم انصر بير أحب الدينين إليك بير لبد الدين والدين تانيك أن النصرين آية ويدين كونك أن أوته الدين محمد النصرين آية لبد الدين مثل لو قد عليها أكثر النصرين بير ساك اللهم انصر أحب الدينين إليك بير ديننا العتيق دين تاني هراء هايسنة ويال أنكسو قارني دين إبراهيم بو يقانا ويلي بسي دين تنويل إبراهيم أنسو قارني دين تنويل إبراهيم فرقوا ما هي الله بو شريك يلا يابا أم دينهم الحديث أما دين تان عصوبة هذا محمد قول لي يمد لبدا الدينات دين تان هذا عصوبة محمد قول لي يمد دين تي عتيق هذا هراء أنا هايسنة ويال أنكسو قارني إبراهيم وقو هرأي إله لبدا الدين تي أجعش يساك وقرقار بير فأنزل الله بسود الجيي إن تستفتحوا كالسار هداد ويدستين فقد جاءكم الفتح كالسار كي وايمد الإمام الضبري قال الزهر في قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح قال وحير استفتح وحا كالسار ويدستي أبو جهل ابن هشام أبو جهل بن هشام قال وحير اللهم أينا كان أفجر لك إلهو لبضي كي فاجرك أو أعضى للرحم رحم قويسك فأحنه اليوم ما أنت هلاك بير إلهو لبضي كي فاجر سن أني محمد نبي كوضا صلى الله عليه وسلم رحم قويسك ولي ما لها قار وحي وكدري وأتانا بما لا نعرفه بلي وحانا قررين اللي يمد ساك هلاك بير يعني محمد بو كوضاي صلى الله عليه وسلم سيقا كوشي غيب إيو نفسه ونفتيس يعني محمدا ونفسه أني إيو مركو ليه هاي وأسيق إيو النبي لبدا سو شيغيا لبا هقاميين كلا آيان هقامي دينتيس أي تاي دين الغي هقامي دينتيس أي تاي دين الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل واي قال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فضربه وحا رفتي وسيف لهلي ابناء عفرابة سيف لهلي عوف معوض ابن مسعود نواس راعيي ومكتوارها واعتري قال أبو جهل بن هشام اللهم وحير إلهه كيجي قراب قوسك
واكنبا وأتانا بما لا يعرف بير وحان لقرنين ليمد ساك هلاك بير فكان هو المستفتح كان فتح ويديي إن لكلا سارة ويديي أسيقا أبو جهل من نين كاسا مركدا هي أنا وقال باناي أنا وقال بالله إدها كفرت بالله الله وكو كفري يعني قال الله إدها ساس هلو قال محمد مساس لها ماي وحو آمين سنان نبي الصحابيس إنا يهين ضالين أو مضلين دادك اللومنية إنا يهين ساس أدقال لما يا شركة سيدي سبع عقيدة واي ووح قفك الروميناي جعلاناي كل دمناي واي مرك قار كل دمناي معنا markaas waxa lagu leeyahay gaalada waxay laayeen annaga gaalanahay marka annagu maadaama aan leenahay muslimnahay saasa muslim ku nahay waa gurur iyo sirnaan iyo dalaal meesha u dambaysa waa siiratu ibn hisham kafiri mujalladaas iyo safxada muxuu ahay 196 qoraaladaas kore marka meelihii laga soo qaatay waa anigii idin soo dhigay oo idin soo calaamadeeyay qofka meeshaas ugu noqon karaa dad baa waxay yiraahdaan qoraal haddii loo soo dhigo xataa masdarka uu ku yaallo meeshii laga helayo la ishaaray maya ma rabno soo sawir waa lagu leeyahay soo sawir marka waxaas waa dhibid waaye laakiin dhib ma laha hadday ku hanuunayaan dhib ma laha waa u soo sawiraynaa laftigeeda haddii ay sakhirnaato laakiin waa ku qanci karaa qofka oo xaqdoonka ah qoraalkii haddii lasoo dhigo masdarkiina ugu yaallo oo tafsiirku ku yaalla dabari wuxuu ugu yaallaa aayaddaas haddii la yidhaahdo waa raadsan karaa qofka maya waxaa lagu leeyahy soo sawir marka waa dameer ceel ku dhacay koy ku day waayo marka waa ku dayaynaa bal hadday ku hanuunayaan oo usoo sawirnay qaala alimaamu dabari raximah llahu tacaala waxaan daba joogaa marka wayaxsabuuna annahum muhtaduun gaaladu waa isla fiicnaayeen waa isla toosnaayeen isla toosnaantana cudurdaar waa ku waayeen waa isla toosan yihiin ayaan la gaalaysiin lama dhihin ويحسبون أنهم مهتدون مركو وحو يرى الإمام الضبري رحمه الله تعالى وهذا من أبين الدلالة وهذا أرين كان بير من أبين الدلالة دليل وكي وقعد دابير على خطأ قول من زعم إنه خلدن يقفك يري الله عذاب ما أحد معصيف ولي أما أرين ضلالة اعتقادية إلا إنه اللي يماذا مويانه مركو أقادي بصواب وجهها مركو أقادي كدب sida saxda ah oo markaas cinaad iyo madax adeeg ee kascad u khilaafay mooyaane si kala qofku waxba looga mahaysto dadkii inay khaldan yihiin ayay aayadu daliil u tahay alimaam dabari baa dhahaya liana dalika law kana kadalika hadii arrinku sida ahaan lahaa buu yiri lam yakun bayna fariiqi dalaala fariiq baadiyaysan alladii dalla wa yaxsabu annahu haadin lumay hase yeeshee isla toosnaa markuu lumayay iyo فريق الهدى فرق بأمة دحيان بي وفرق بأمة دحيان وقد فرق الله لنا وكل صاري بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية أي كوكل صاري دبر بحول لي هاي سدو كلا عند تفسير قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنه كثير وكوا فقياي ويجر وهذا إسل هذا الكهداي والله سيق رحيي من أدل الدلائل والدليل إذا كان وعد وير على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله لكو قالوا ما أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر قال لمن إنه قصد مويانه بعد العلم بوحدانية الله مركي وحدانية الله وقال على كريء إنه عباد الله هاي أنت ساس ما بير وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر وحو شاقيب أن هؤلاء الذين وصف صفتهم الله كوا صفته أوت المامي في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا سعي ذلك أي سميان في الدنيا ذهب إنه نقضي ضلالا ونقضي وقد كانوا يحسبون أيوه باسمودي أنهم محسنون إليه اسمودي في صنعهم هذا فلك أي سمينيين أيوه اسمودي يريب إنه توصيين أو أخبر الله شيء عنهم حق أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم من أيهين كو آياتها إلهي كفريي ولو كان القول كما قال الذين زعموا هذا الكهدو أهان لها ويرسد أن منك أي شيء أيان أنه لا يكفر بالله أحد لكو قالوا ما إلا من حيث يعلم إنه علم الله هي مويانه وأجي هاي أرنتان لو وجب وها واجب نقول لها بير أن يكون هؤلاء القوم في علمهم في عملهم قوم كان بير عمل كودي الذي كاسو أخبر الله عنهم الله شيء أنهم كانوا يحسبون إني إسلط توسنايين ومكت أي موديين إني توصيهين سلفي عنايين waxay noqon lahaayeen buu kuwa laga ajar siinay
ولغا ثواب سيناي عليها أي أهان لا ينير ولكن القول لكن قولك بخلاف ما قالوا سيدي شيغيان كوان سي أنا هين واير وننك له قال إسكا أميسانين دادك له واير فخلطين بيلين سلفكم الإمام الضبري وكو شيغي إنay arrinta khalad tahay gaaladu way isla toosnaayeen ee gaala inay yihiin iskama aaminsaneen iyagu adigaba haddaysan ka aaminsanen inaad gaal kala tahay waay waidaa ra'awhum qaaluu ina haaulaa'i ladaaluun baan kusoo qaadanay faأkhbara jala hanaa'uhu canhum annahum billaahi kafara alla wuxuu sheegay buu yidhi jaliilka ahaa wuxuu noo sheegay buu allah casiiska jaliilka ah inay kafara yihiin wa ana acmaalahumna inay xaabida tahay jaamicu lbayaan ka fiiri shubhadaas marka iyo khada'aas aayadahaas laga galay waxaan kusoo afxirayaa maqdacan aan kusoo afxirayaa insha allah sidoo kale hadallada waxaa ka mid ahaa abujahal inuu yidhi yowma badrin markii la fasirayo aayaddan intaas taftixu baana lasoo qaadanaya an cadiya qaala abujahal yowma badrin allaahuma ansur allow u gargaar ahdal fi'atayni labada kooxood kooxda muxamed uu wato iyo kooxda aniga aan wato tan ugu hanuunka badan ismu tafdiil ahdal fi'atayn labada kooxood midda ugu hanuunka badan buu yidhi ugu hanuunsan adigu aad ugu jeceshahay oo dariiqii saxda aheed haysa allow saaka u gargaar buu yidhi wa khayral fi'atayni buu yidhi labada kooxood midda ugu kheerka badan kooxdan maxamed uu wato iyo tan aniga aan wato midda ugu kheerka badan rabbi uu saaka u nasray buu yidhi wa afdal uguna fadlo badan muxuu leeyahay abujahl ma nin gaal iska aaminsan alla inuu ka fogaaday aaminsan baa hadalkaa ku dhiiran kara ma nin iska aaminsan inuu kaafir billaahi yahay allana ka fogaaday alaa dalaalin mubiin ku sugan yahay ninka ka soo horjeedana ka aaminsan inuu yahay calaa hudan mustaqiim miyaa warkaas ku dhiiranaya oo naftiisa sidaa u halaagaya u habaaraya isla toosnaa ninkan waa isla toosnaa nabigii saxaabadiis inay khaldan yihiino ayuu moog tahay iyo ayuu caqiidaysan si guud baan aayadda ugu fahmaysaa wayaxsabuuna annahum muhtaduun isla toosnaan marka waa jirtay waxaa kaloo meesha taalla qofka kaafirka ah mararka qaar shay xaq ah asigoo og buu madax adeeg u khilaafaa mararka qaar waa lama diidana laakiin gaalibka gaaladu maxay yihiin waa juhalaa cudur biljahlana ma galo meeshaas asludiinka ma galo cudur biljahle ma jira gaal marka xaqa ogaaday haddana mucaanid ah ma jira waa jira haa wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum laakiin mucaanidiinta iyo jaahiliinta yaa badan jaahiliintaba fara badanba haddii la yihahdo marka jaahil gaaloobi maayo gaalaba uma soo harayso wax yaraa usoo haraya baa unayna ibliis iyo fircoon wax yaraa usoo haraya gaalada kufaarta agarkood waa jaahiliin waa isla toosan yihiin abujahl marka muxuu leeyahay hadda wuxuu leeyahay allaahuma ansur ahda alfi'atayni wa khayra alfi'atayni wa afdal fanazalat in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu su-aashan marka akhiiran hal hunaaka tacaarud ma waxaa ka dhexeeya iska hor imaad bayna qowlihi tacaala shaahidiina calaa anfusihim bilkufri iyo wa qowlihi tacaala wayaxsabuuna annahum muhtaduun wasla toosan yihiin ma waxbaa u dhexeeya oo khilaafa aljawaab laa tacaarud baynahuma wax tacaaruda kama dhexeeyo qur-aankana iskamaba hor yimaado sideeda albat maba iska hor yimaadaba ma isbeeniyo qur-aanka isma hardiyo bal yusadiqu bacduhu bacdaa liqowlihi tacaala baa kuu daliila afalaa yatadabbaruuna alqur'aana war qur-aanku miyaysan fiirfiirinayn markay hal meel ku dhigayaan weliba meesha ay ku dhigayaan khalad haddana u fahmayaan waxaa la yidhi mogta qur-aanku kuma tadabburayaan miya walow kaana min cindi gayri illaahi allah meel aan ahayn qur-aankan hadduu ka imaan lahaa lawajaduu waxay heli lahaayeen fiihi fi lqur'aani qur-aanka dhexdii ikhtilaafan kaiiran ismaan dhaaf iyo iska kala duwanaan iska hor imaad bay arki lahaayeen laakiin qur-aanka iska hor imaanayo liannahu min ladun xakiimin khabiir alla xakiim oo khabiira xaggiisu ka yimid hada wabillahi towfiiq waxaan ilaaway hal warqad
وكان ليس أبو بكر مركو إسلامي. قال ابن إسحاق شيخ سيرة الله قدام بيوه ومعروف ولا قرنيا وعلماء المغازي دتك مسلمين تدتك اعتمادان دتك وين كميديا. ثم إن أبا بكر بير لقي وحلك المي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحون يري أد ودقيس ماشاس محق بابوير وح قريش أي شيء يسو محمد أو آلي هذا إنات كتكتي عقل قودي دقميسي قالي سيسي أبياش الدوير ماشي وقصد ماشي سواء أبو بكر محوليه صاحبي هايين بالي راسيق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام انتو صار إسلام كوري أسيق النبي صاحبه هايين محوليه مرك محمد وح قريش أي شيء يسو مسحبه أو آلي هذا إنات كتكتي عقل قودي دقميسي إي قالي سينت أد قالي سيسي أبياش الدوير رسولكم وحوق جوابي أبو بكر إني رسول الله والنبيه أنا رسول الله بانا أي النبي الله بانا يسوى دري رسالة إن إذن قارسيو الله بان كوكو يا بير دعوة سيبا وكو شاقي فأسلم أبو بكر أسلامتين وكفري وخلع الأنداد أندادين وكبحي وأقر بحق الإسلام بوقري ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق سيرة ابن هشام مصدر كان واكاس انتاس نوار ربي إنان إذن راعيه إن شاء الله تعالى مرضى ميان لذن كم مغلين مركة قالوا وحي لاين أنه قالان هاي ما دام مركة وحي يراهدين هذا كان وحا كيني وحي يردد كان سومالي دا مركة اللي يراهدو قال باتاي وكل الدقال لما ينبير مركو وحي ودليشدين ما دام إلا الدقال لما ينددكو أي حناقة يعني ويبوديان إني مسلمين ينساس ودليشدين وانا خضع كل بما أقلين أرنتاس كل بما كدقال لما ين آيدي كفر كالله مركة اللي قدو الأخريو وأني سوقاتي وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف واحد قرنيسا في وجوه الذين كفروا المنكر آيات اسم الصومالية كهليسا كما هليسا قرآن كمركو سودقي قالت جوكتي كهليسا قالتين هدي اللي رأى دمشيك حقين وسوب بوذيين وجينا كاحكتان بكوسيقنايين مركيان لموذين مانتا هدي ددك لقاليسيو أما مشركين باتين اللي رادو هدي حناغان ما شاء الله مسلمين ويوي حناغين وخضا خلط وارنتاس si khaldan wax loo fahmay waa waa tarbiye ka timid bay khaldan waa bulsho khaldan tarbiye laga qaatay waa hada wabillahi tawfiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا شيخ معاذ وحال الرباء وحال اسكو هايو إن لغا هدلو وردد كان إني قاليهين ودينتان أولي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي سنربين وي أغايين oo aayadaha quraanka inoo sheegay inay dhahayeen war aalihadii dhamay ma waxaad ka soo reebtay hal ilaah anaga ma doonayno in aalihadiino dhan laga tago oo hal ilaah la qaato gaalnimadooda de way cadaatay oo banaankaas ay taagantahay ayagaaba dhahayaan anagu ma rabno waxaan aad la timiday marka waxaan la yaabanahay wadaadkan waxaan uu isku daaliyay iyo waxa la weydiiyay maxaa iska qoseeyo wax shaqa isku leey shaqa iyo shuqul ay isaga xujada isku oogayo oo wuxuu keensanayaa Abu Jahl oo dhahayo labada diinood diintan oo la yimid rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam iyo diinta isaga oo haystay wuxuu qirayaa inuu laba diin ay kala yihiin isagana uusan doonaynin diinta uu la yimid nabi maxamed waa gaalnimadii oo isku cadeeyay isigiiba isku cadeeyayba marka maxay tahay isiga xadiis xujo ku ah ayuu wuxuu u soo qaadanayaa inuu isiga uu la socayo subhanallah ruuxa soo talbiis ah walaahi miyaa laga cabsanaysa wuxuu jiraanay hadda basaasay leeyihiin ma hadda inaan lahayn ma qabtaa halkaas adiga waxaad mooday mas adiga carabiga sugaysaa dadkan inay carab noqdaan af carabi ku hadlaan miyaa sugaysaa af Soomaaliya lagu sheegay hadda bataas war anaga awliyada ka tagi mayno nagala tag bidcadaada iyo wahabanimadaada iyo gardheeranimadaada maxay aj'ala al-alihata ilahan waahidan lamad bidcada nagala tag lagu leeyahay tawxiidkii awliyada anaga kama tagayno sheekh hebel kama tagayno sheekh hebel kama tagayno sheekh hebel kama tagayno waxay lamad tahay la tadarunna alihatakum wa oo af Soomaali laga dhigay waa fahma dadkan arab ma arabi ku akhrin maayaan haddaba sida la lahaaba haddaba leeyahay اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هدي أهد
hadda waxay maraysaa juhaladoodii bay arbaab ka dhigteen min duunilaahi culamadii iyo juhaladii yaa daran iyadoo labadaba kufri tahay hadda lagaba darba axbaarahum baaba laisku ogaayay ittakhaduu hadda waxay maraysaa juhaladoodii iyo kafaradoodii iyo fajaradoodii qaramada midoobey bay arbaaban ka dhigteen min duunillahi halkaasay maraysaa haddaa daranba marka owliyada kama tegaynana meel kastay taallaaba owliyada kama tegayno qubuurahooda ma daynayno nagala tag bidcadaada diintan cusub nagala tag abujahlin hadda muxuu ku lahaa diintan cusub iyo diinta hore rabbiyow ti aad jeceshahay u gargaar buu yidhi isla toosnada waagaasna waa jirta haddana waa jirtaahe idinkaan fahmayn